ololaha awdal unity waxa uu ogeysiinayaa uguna baaqaya dadka muxsiniinta inay ka qayb qaataan dhismaha hoy loo dhisayo laba wiil oo xagga dhimirka ka xanuunsan kuna nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. hoyga ay labadaas wiil ku nool yihiin waa ka hadda idin muuqda waana mid aan aad u wanaagsanayn una baahan hoy wanaagsan oo ay kaga gabadaan cadceedda iyo dhaxanta jirta. walaalayaal, ololaha awdal unity hore waxa uu qoyskaasi ugu dhisay suuli ama musqul aanay hore u lahayn, balse dadaal kadib waxa uu ku guuleystay inuu dhiso suuligaasi si baahida weyn ee qoyskaasi haysatay loo daboolo. haddaba Faadimo Warsamo Faahiye ayaa arrintaasi hoygaasi ee labadaas wiil u baahan yihiin ka waramaysa. sidoo kale xaggan dhismahan maanta qabowga iyo adceedo xitaa ka soo dhaxmuuqaan oo ka wada hahanaya dhinac walba uu ka daloolaa. jiingadaha waxaan ku sameeyay buul baan kula iyo kolkii hore ku dhisay buulkii kuwii lagu dhisay ee caanidooga ama daasada tamaada ayaan isku geegeeyay oo kolkay inamadii sidaa noqdeen hal isku keenay labada xabad dusha ugu dhisay cusub. wax kale maaragtay hagaagsan oo saaran ma jiro. dhinac walba dabaysha ka soo galayso wada arkaysan albaab ma loo wada arkaysan oo maraan ugu daaha maraan ugu xidhaa iyo bustaha yar baan ugu xidhaa. de markaa wada arkaysan dhibaatada haysata. walaalka muxsinka ahaw ka qayb qaado ololaha awdal unity ee hoyga loogu dhisayo labadaas wiil wixii awoodaada ahna kaga qayb qaado adiga oo telefoonka shaashada ka muuqda nagala soo xidhiidhaya.